faadumo sheekh daahir gudoomiyaha gobolka Gedo ee ururka haweenka meeshaan waxay isugu yimid maanta ururka haweenka heer gobol iyo heer degmado waxay isugu imaadeen waqtiga jira iyo wacyiga jira inay iska wareystaan ama ka hadlaan waxa weeye maanta waxaan ka hadlaynaa ugu horeyntii waxaan taageeraynaa shirka ka socdo Samareeb ku soo gabagaboobay waxaan cudadaar ka bixinaynaa dib baan u dhacno daliid baan hay hadda waxaana sabab jira awgood baan muxuu ahaayay aan u dib dhacnay iyo waqtiga jiro waxa weeye shirkaas waan taageernay aad iyo aad baan u taageernay waxaan ku taageeraynaa wax alla wixii ka soo baxo dawladda iyo dadka iyo Soomaalida dan u ah ayaa ka soo baxay waxaan mahad u celinaynaa dawladda galmudug maamul goboleedka galmudug baan mahad u celinaynaa qoor ilaahay khayr ha siiyo gobol dhigiisi iyo ku xigeenkiisi iyo galmudug oo dhan haday xildhibaan tahay iyo haday wasiir tahay iyo haday dhalinyaro tahay iyo haday haween yihiinba waa u mahad celinaynaa say ugu gobol dhigeen ilaa 3 ilaa 1 galmudug waan u mahad celinaynaa aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan kale oo dhiirigelinaynaa oo soo dhaweynaynaa shirka 7 degmada ka socdo oo ka socda degmada Buulaxa ee gobolka Gedo asagana waan soo dhaweynaynaa ilaahay waxsan ha ka soo bixiyo waa midayntii gobolka muddo 30 sano waxaan u malay inaan la isugu imaadin shirkaas oo kale ayaan muxuu ahaayay yaan ognahay waxa weeye shirkaasna shir maradala Allah ka dhiga ka socdo gobolka Gedo degmada Balad Xaawo ka socdo waa soo dhaweynaynaa guul iyo gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa ilaahay wax khayr qala inuu ka soo bixiyana yaan ka rajaynaynaa waxaan aan raali ka ahayn annagoo ah 7 degmo oo Gedo afkooda anoo ku hadlahayo gudoomiyihii gobolka ah iswaraysanayna waxa weeye shirka laga hadlayay oo ninkii madaxweyne ku xigeenkii hore oo Jubbaland ahaa uu soo xirahayay Maxamuud Sayid Aadan uu ka hadlayay annagu cidna matasho iyo cid gobolka naga ka soo baxday iyo gabdho tagay ma ogi meel uu ka keenay hadalkaas asaga sheegi doono annaga waxba nagama tagin wax gabar oo diray iyo wax gabar oo ognahay iyo degmooyinka dhan hadaan iswarsanay wax naga tagay oo gobolka Gedo ah oo shirkaas ka qayb galay annagu ma ogi meeshu ka keenayna madaxweyne ku xigeenkii hore asaga sheegahayo annaga waxaana raali ka ahay marna wixii muxuu ahaatay Soomaali kala qaybin hayo wixii gobolka Jubbaland maamul goboleedka Jubbaland kala qaybin hayo waa diidana waxaan diidanahay shirka Soomaali oo dhan ka qayb gashay Axmed Madoobe inuu diido oo sheeganayo Jubbaland ma taageersanin arintaas hadaan nahay gabdhaha gobolka Gedo ama gabdhaha Jubbaland aan nahay ma taageersanin waa diidanahay waxaan leenahay dani iyo Axmed Madoobe dadkiina soo raaca Soomaali wixii dan u ah baadan idin ah dawlad dadka shacabka ah uu rabaa dawladnimada haduleynina dadkiina haduleynina muxuu ahaayay Soomaali weyn waadna ceebayseen meel walba waxa ka yeeraysa gabdhaha Soomaaliyeed lama kaftami karno waxay dhaheen shirka daarood baa ka maqan labadii gobol oo daarood haystay shirka way ka maqan yihiin waxa weeye waxa dirqin hayaan oon aad iyo aad u diidanahay oon cambaaraynayna maamulkii hore Jubbaland oo xoog nagu haystay awalba haddana ilaahay naga badbaadiyay yaan aad u diidanaha warkii uu ka sheegayay meesha xamar dhurwaa ma fadhiyo waa dalkii Soomaaliyeed waa dadkii Soomaaliyeed waxa ka horeeyo waa dadkii shacabkaaga ah haduu ku diiday war dawladda ku carar baan ku leenahay waan ku diidna keenay annagoo ah ururka haweenka gobolka Gedo iyo gobolbo Garbaharey anoo ah fadhiical shire ah gudoomiyaha degmada Garbaharey maanta waxaan ka hadlaynaa laba waxyaabo 3 waliba andehe mid waa mid waxaan taageeraynaa shirkii maxaan ku leedahay Samareeb inkastoo ka soo daaharay waxa jira awgood waan taageeraynaa waan soo dhaweynaynaa waxaan u mahad celinaynaa intii soo dhaweysay iyo intii ka qayb qaadatay iyo intii wax ka qabatay aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa midda labaad waxa weeye anagu haddaan nahay reer Garbaharey waxaan maqalnay reer Garbaharey baa aaday Kismaayo gabdho reer Garbaharey Kismaayo aaday waxaan anagu ognahay ma jiraan
dad kismaayo laga soo qabsaday garbaharey bay dadkan ka imaadeen in la dhaho oo annagana ku been abuurto wax ay yeelayna ma aha suurtagalna ma aha ku hadlaayo codka degmada haweenka gobolkiina uu eecaag fadhiyo labadanadii ugu sarreeyna haweenkaba oo meeshaan fadhina in la dhaho gabdho garbaharey ka yimid baa diyaarad lagu qaaday oo kismaayo joogo annaguna ana waxba ka ogeyn wax suurtagal ah ma aha malama been abuuran karo gabdho ma ana dirsanin kismaayo gabdho jooga inta la keensada waa la dhihi karaa gabdhaha garbaharey bay ka imaadeen dad dan leh annaga iyo dantooda lagu fushan reegadoo dhan waayo xataa waxaa laii sheegaya luuq baa laga yimid hebla laga yimid haddii la iswaraystay wax luuq ka tagayna ma jiraan oo madaxda iyo mas-uuliyiinta ay og yihiin meel walba waa la iska waraysta annaga reegadaa wax naga tegay oon annagu ognahay ma jiraan wixii dhuuntay xataa waa la ogaan karaa aeroboortka dad baa noo joogo maanan arag annagu waxaan ognahay been abuur inay tahay dadkaas kismaayo iyo meelahaas in laga maxaan ku irahdaa laga sameeyey maxamuud sayid oo waxaan aragnale maxaan ku irahdaa dad gela ka yimid baan shir u qabanaynaa doorashaa la qabanhayaa ahmadow baa la teghayaa hiblaayaa la teghayaa dadka gela ka yimid oona annaga reegada annaga aanan ogeyn oo asagu u ogyahay waa dad asaga uu samaystay magaca gadana wuu ku qaraaban karaa ninku reegada uu ahaa oo reer kismaayo ku joogaa gadaan ah gadana dad ka tegay ma jiraan waxaan sheegaynaa oon cod dheer iyo cod gaabanba ku sheegaynaa annaga ayaanala ka been abuuranin waxaan dirsanay iyo wax noo maqan oo shirkaas ka qayb galaya ma jiraan intaasaan anagu oga baxa